السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أصحابتك وحيران كنالك channelka المسيد وادين سلامية إن ما أنتو عن قادم دونا مادة فيزيكس كفوم وينك وأنا chapterka كواد إن قادم دونا introduction to physics اللي راه ظهر دعاه مادة فيزيكس كا إن قادم دونا منهج دوكسك السري دالك الصومالية waxaan idin soo diyaariyey bay cabdiraxmaan cumar cali dheer oo aniga ah waxaan ugu talagalay cashirkan cilmi sidi haddaba ka buusho wanaagsan walaal sii sheer garay si dadka kale ay u helaan subscribe saar gambaleelka dhaysi ama gambaleelka taabo si cashira kale haddii aan soo dhigno ay ku gurgunaadaan hadda waxaan guda gelinaa cashirkeennii chapterka koowaad ee introductionka at the end dhamaadka of this chapter cutubkan the learners dadka wax baranaya ama daraasayna ama wax ka baranaya should be able waxay awoodi karaan to in we can define in qeexan physics waxa uu yahay physicska classify inay kala saaraan branches of physics laamaha physicska explain in sharhan contribution fidida of Muslim scholars ay fidiyaan aqoonyahanada muslimiinta ay fidiyeen in physics cilmiga physics heerku ka gaaray related physics waxyaabo la xiriira physicska to the other subjects maadooyinka kala xiriira technology iyo teknolojiyada identify in la ogaado career opportunities fursadaha aad u faraha badan leh ee ku jira in physics maadada physics definition qeexitaan ama define qeexitaan physics cilmiga physics ka study waa barashada of the world dunida around us anaga nagu hareeraysan in a sense markaan maskax ahaan ama dareen ahaan we are more qualified waxaan aad u tayeynaa to do inaan ku qabano physics maadada physicska then markii loo fiiriyo in other science maadooyinka kale ee sayniska from the day maalintii we are born and dhalanay anaga bini'aadam haddii aan nahay we study waxaan daraasaynay things shayal around us anaga nagu hareeraysan in an effort si weyn aan u daraasaynay to understand so fahmno how they work sida u shaqeeyaan and relate iskula xiriiraan to each other mid kale learning barashada how sida to catch loo qabto and through loo tuuro a ball kubad is a physical undertake waa qayb ka mid ah oo la soo qaadan karo xagga physics-ka for example tusaale ahaan la soo qaadan karo in this field of study qaybtan daraasaynta ama barashada we refer to waxaan dhahaynaa to as a physics we just keliya try waxaan isku daynaa to make inaan samayno the think shayal of everyone qof walba has been studying hore u yaqaanay ayaa waxaan ku samayn doonaa more clearly wax intaa ka dheer si waadix ayaan sii cadaynaynaa we attempt waxaan isku dayaynaa to describe inaan u sheegno ayaga them shayaalkaasi through simple rule anagoo marayna sharciyo fudud and mathematics iyo xisaabaad mathematics maadada xisaabtana is a merely the language waa luqadda keliya we use and adeegsan doono